بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal halkan nagala socotaan waa kanaalka tamaam qisada maanta soo qaadan doona waa qiso xanuun badan laba arrimood filo haddii aad guursato qof ajnabi ah Soomaalida dhexdeeda waxaa ku badan haybsooca sida in la isku diido laba qof oo is doortay iyada oo la tixraacayo qoysaska ay lamaanuhu ka soo jeedaan. Arrintan ayaa ah faquuq muddooyin soo jiray. Soomaali badan ayaa u qaxday dalka dibaddiisa, gaar ahaan waddamada reer galbeedka. Dhaqanka guurka Soomaalidu waxba iskama aysan beddelin marka ay timaado guurka ajnabiga ah iyo Soomaalida. Arrintan ayaa keentay in ay yaraadaan isdhexgalka Soomaalida iyo bulshooyinkii ay u tageen. Markaan soo guursaday anigu bataatan, bulshadii Soomaaliyeed ee degganayd magaaladayda way i goysay, laymana soo booqan. Waxaan filayaa dumarkeennii waxay dhaqan u lahaayeen marka gabar wiil soo guursado in ay u keenaan hadiyad oo la soo dhoweeyo. Qaar ayaa igu yidhi gabadhu way soo islaantay oo waan ku faraxsanahay. Raggii Soomaaliyeed waxay igu yiraahdeen war sidee isula jaanqaadeen, war indhabalishani maxay ahayd, halka qaar kale ay yiraahdeen waa maxay firaanfirkan. Sidaa waxaa soo gudbiyey oo noo sheegay Axmed Cabdiqaadir Cagmadhige oo guursaday gabar u dhalatay dalka Sweden. Axmed wakhtigan waa aabba haysta 3 wiil oo ay u dhashay haweeneydii u dhalatay dalka Sweden. Wiilashan ayaa loo bixiyey magacyada kala ah Sakariye, Ilyaas iyo Makahiil. Carruurta Soomaalidu waxay u arkaan wiilasha uu dhalay Axmed in aysan ahayn Soomaali sax ah. Haddaba su'aasha waxay tahay midabka miyaa Soomaalinimada mise waa jinsiyadda qofka? Waa kan Axmed oo joogay dhacdo xanuun badan oo kala qabsatay gabadh yar oo Soomaali ah iyo isaga lafahantiisa. Ilmo Soomaaliyeed oo ay isla yihiin qiyaas ahaan ilmahayga ayaa ii yimid aniga oo 3 ciyaalka wata, waxayna i weydiisay adeer ilmahan gaalada ah ee aad wadato maxay yihiin. Cunugtii yareed maskaxdeeda in aan dhaawaco ma rabin, waxaana u sheegay in aan ilmahan dhalay, wayna iga diiday. Waxaana la yaabay jawaabta aan ka helay hooyadeed oo la socotay gabadha yar oo uguna jawaabtay gabadhaydii yarayday kuna tiri naa soo soco awal baan la yaabanayne. Waddamo badan oo galbeedka ah waxaa ku soo badanaya guurka ajnabiga iyo Soomaalida. Guurka noocan ah ayaa inta badan la kulma faquuq uga yimaada wiilka ama gabadha ajnabiga guursatay bulshada Soomaalida nool. Intaas ayay naga egtahay qisadeena maanta saaxiibayaal. Fadlan ha ilaawin inaad channelka rukumato, sidoo kalena noo like garaysid. Mahadsanidin.